qabuuraha muslimiinta ayay burburinayaan oo ay weerar ku qaadeen. dalka UK ayaamahan waxaa ka socda mudaharaadyo xambaarsan qalalaaso iyo rabshado taa oo ay gaashaanka u hayaan kooxaha bidaxda fog ee cunsuriyiinta ah. kooxahan ayaa waxay dhigayeen dibadbaxyo rabshado wato. ma ku nooshahay dalka UK ama miyuu ku nool yahay qof familkaaga ehelkaaga ama asxaabtaada ka mid ah? haddii aad dalka UK ku nooshahay ama ay asxaabtaada iyo eheladaada ku nool yihiin, fariintan gaarsii. ilaahay baa waxa ilaaliye in ay is ilaaliyaan oo ay is jiraan. kooxahan cunsuriyiinta ayaa beegsanaya dhammaan shacaa'irta islaamka sida masaajidda, madarasooyinka diiniga ah, hablaha muslimiinta ee xijaaban, ragga garka waaweyn leh, ragga khamiisyada iyo koofiyada sita ee ay ka muuqato shacaa'irta islaamka. sidoo kale waxay beegsanayaan looyarada muslimiinta ah kuwa oo u dooda dadka soo galootiga ah. maanta waxa ay burburiyeen oo ay weerar ku qaadeen qabuuraha muslimiinta. haweeneyda ah wasiirka arrimaha gudaha ee dalka ayaa ka hadashay ayadoo sheegtay dadka waxa ay ku kacayaan in ay tahay wax laga yaxyaxa oo waxa weeye ceeb ah. dowladda UK-na ay ballan qaadayso in ay ilaaliso masaajidda iyo goobaha muslimiinta ay isugu yimaadaan. haddaba rabshadahan dhibaatada wata ee dalka UK ka dhacay, dhibaatadani iyo qalalaasahani maxaa sababo asal u ahaa? maxaase muslimiinta loo beegsanaya? dhibaatadani waxaa sababay wiil yar oo Kirishtan ah ayaa wuxuu dilay gabdho. magaalada Southport ayuu ku dilay gabdho yaryar. wiilka ma uusan ahayn muslim, laakiin wuxuu ahaa madow soo galooti ah. muxuu yahay waxay galabsadeen ee loo beegsanaya dadka muslimiinta ee shacaa'irta islaamka? waxaan arkayay nin looyar ah oo muslim ah oo aan u malaynayo inuu ka soo jeedo wadamada Pakistan iyo Hindi iyo wadamada oo baraha bulshada lagu faafiyay xogtiisa oo dadku raasanayaan isaga oo gurigii u degnaa ka qaxay. warbixin ayaa wuxuu siiyay channelka la yiraahdo 24 ee dalka ka soo baxo. qof waliba oo Soomaaliyeed oo waxa weeye ku nool dalka, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha amaansado. halka waxa ku nool dad badan oo dadkeena ayaa ku nool. dhamaantood waxaynu leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha amaansado. gaalada shartoodana Ilaahay gees ha ka mariyo. waxa weeye dhankooda wanaagsanna Ilaahay ha u soo duwo oo bagooda burcad Allah u mariyo. inkastoo dalka uu dawlad leeyahay, inkastoo boolis iyo hay'ado amni uu leeyahay, haddana waxa weeye mar haddaadan dalkaaga joogin qalalaasana u dhaco, waxa weeye xaaladaadu mar waliba waa iska adkaanaysaa. marka waxaan leeyahay taxadaro, ilaahayna tala saarto oo waxa weeye adkaarta ka akhrista. adkaarta ayaa ku filan. waa sharwadayaal shayaadiin ah. insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inuu qof waxa weeye muslim ah ama Soomaali ah uusan dhib ka soo gaari doonin dhibaatada ay wadaan qolooyinka waxa weeye xag jirinta ah.